5 kaabis dabiici ah oo kor u qaadi kara koritaanka murqaha iyo soo kabashada. Marka ay timaado dhisidda murqaha iyo dardargelinta soo kabashada, dadka intooda badani waxay diiradda saaraan barnaamijyada tababarka iyo qorshayaasha cuntada. Laakiin xeryahooda dabiiciga ah qaarkood, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah ay hore ugu jireen cuntooyinka iyo jidhkaaga, waxay ku siin karaan horumarkaaga fayoqabka gees dheeraad ah. Iyadoo kaabayaashan inta badan lagu soo saaro shaybaarada si ay ugu habboonaato iyo nadiifnimada, waxay kiimiko ahaan la mid yihiin waxa ka dhacaya dabeecadda. Waxaa taageeray cilmi baaris xooggan, waxay hagaajin karaan xoogga, dulqaadka, iyo soo kabashada marka lagu daro tababar joogto ah iyo nafaqo habboon. Halkan waxaa 5 ka mid ah kaabayaasha dabiiciga ah ee ugu waxtarka badan ee la tixgeliyo. Haddii aad rabto warbixintan oo kale fadlan guji sabskraibsi. Aad u hesho warbixina intaan ka badan ha iloobin inaad nagu soo biirto mahadsani. Reetine. Reetine waa mid ka mid ah kabitaanada ugu waxtarka badan ee cilmi baarista iyo waxtarka leh ee kor loogu qaado xoogga iyo waxqabadka. Waxay si dabiici ah ugu dhacdaa cuntooyinka sida digaaga iyo noocyada kalluunka qaarkood sida salmon, tuna iyo cod. Jirku wuxuu kaloo soo saaraa xaddi yar oo ka yimaada amino acids. Daraasaduhu waxay muujinayaan doorka ugu weyn ee reetine waa in la buuxiyo ATP, adenosine triphosphate, lacagta tamarta asaasiga ah ee murqahaagu u isticmaalaan dilaacyada gaaban ee dhaqdhaqaaqa sare sida orodka, qaadista culus ama dhaqdhaqaaqa qarxa. Kaabista reetine monohydrate ayaa la muujiyey inay kordhiso xoogga muruqa, wanaajiso awoodda jimicsiga, iyo kor u qaadida koritaanka murqaha caatada ah waqti kadib. Waxa kale oo ay ka caawin kartaa muruqyada kaydinta biyo badan, iyaga oo siinaya muuqaal buuxa oo suurtogal ah inay caawiyaan soo kabashada. 2. Betaine. Betaine, oo sidoo kale loo yaqaano trimethylglycine, ayaa si dabiici ah looga helaa xididada, isbinaajka, quinoa, baradhada macaan, baradhada qamadiga iyo qolofleyda. Waxay door muhiim ah ka ciyaartaa methylation, habka biochemical ee muhiimka u ah shaqada murqaha iyo isku dhafka borotiinka. Daraasaduhu waxay soo jeedinayaan in betaine ay wanaajiso dulqaadka muruqa, fuuqbaxa, iyo guud ahaan wax soo saarka awoodda inta lagu jiro tababarka. Waxyaabaha ay ka kooban tahay osmolite waxay ka caawisaa unugyada inay ilaaliyaan dheelitirka dareeraha ee cadaadiska, taas oo si gaar ah waxtar u leh inta lagu jiro jimicsiga dheer ama adag. Ciyaartoyda ku kabsada betaine waxaa laga yaabaa inay dareemaan horumar xagga cabirka waxqabadka sida xawaaraha orodka, mugga celceliska, iyo daalka oo yaraada inta u dhaxaysa sets. 3. Carnitine. Carnitine waa unug ku lug leh qaadista asiidhka dufanka leh ee unugyadaada mitochondria, halkaasoo ay ugu gubteen tamar. Waxay si dabiici ah ugu badan tahay hilibka cas, digaaga, caanaha, afokado, dhir iyo caano dhanaan. Iyadoo jidhkaagu uu ka soo saaro lisine iyo methionine, 2 acids amino, kabitaanku wuxuu kaa caawin karaa kor u qaadida wax soo saarka tamarta, gaar ahaan jimicsiga dulqaadka. Cilmi baaristu waxay sidoo kale ku xirtay carnitine si loo yareeyo xanuunka murqaha, soo kabashada degdega ah kadib tababarka xooggan, iyo hagaajinta bixinta oksijiinta ee muruqyada. Ciyaartoyda qaarkood waxay isticmaalaan carnitinol tartrate, foom gaar ah oo lagu muujiyey inuu ka faa'iidaysanayo ka soo kabashada tababarka iska caabinta. Amino acid silsilad laamood bacaas. Bacaas, oo ay ku jiraan leucine, isoleucine, iyo feline, waa amino acids lagama maarmaanka ah oo laga helo cuntooyinka borotiinka sare leh sida caanaha, soybeans, lentil, lowska, ukunta, digaaga, iyo miraha. Acids aminoyadani waa kuwo gaar ah sababtoo ah waxay si toos ah u isticmaali karaan murqaha tamarta inta lagu jiro jimicsiga, ka caawinta ka hortaga burburka muruqa. Gaar ahaan leucine waxay u shaqaysaa sidii calaamad si ay u bilowdo iskudarka borotiinka muruqa, habka dhisidda unug cusub oo muruqa. Cilmi baaristu waxay soo jeedinaysaa in bacaayada dheeriga ah ay ka caawin karaan dhimista daalka inta lagu jiro jimicsiga dheer, yaraynta xanuunka murqaha, iyo taageerada soo kabashada, gaar ahaan haddii cuntadaada ay ku yar tahay borotiinka ama aad ku tababarto xaalad sooman. 5. Whey borotiin. Borotiinka whey waa borotiin dhammaystiran, si degdeg ah u dheefshiidaya oo laga helay caanaha inta lagu jiro habka samaynta farmaajo. Waxay qani ku tahay dhammaan asiidyada aminoyada muhiimka ah, gaar ahaan leucine, taasoo kicisa koriinka murqaha. Cuntooyinka ay si dabiici ah ugu jiraan caanaha waxaa ka mid ah caano fadhi, farmaajo, iyo waxyaabaha kale ee caanaha laga sameeyo, inkasta oo ay ka yar yihiin marka la barbar dhigo kaabista xoogga leh. Sida laga soo xigtay cilmi baarisyada ruxruxa borotiinka whey waa hab ku habboon oo lagu hubinayo in muruqyadaadu ay helaan nafaqooyinka ay u baahan yihiin hagaajinta isla markiiba tababarka kadib. Marka laga reebo koritaanka murqaha, whey waxay sidoo kale ka caawin kartaa ilaalinta miisaanka caatada ah inta lagu jiro wejiyada luminta baruurta, taageer shaqada difaaca, iyo hagaajinta satiety. Had iyo jeer la tasho xirfad leh daryeel caafimaad ka hor inta aanad wax isbeddel ah ku samayn nidaamkaaga caafimaad ama daaweyntaada.